waxaad moodaa amiir in aanu seexan xalay, isla markii uu sidaas waagii u baryay ayuu isoo wacay anigoo markaas salaad tukaday. Waan ka qabtay markaas ayuu igu yidhi Caysha ii waran sidee tahay? Waxaan idhi waan fiicanahay alxamdulilah adigu sow ma caafimaad qabtid? Wuxuu yidhi haa waan caafimaad qabaa dhankaaga waan ka walwalsanaa xalay si wanaagsan uma seexan waa habeenkii ugu horreeyey ee aan ku aqaano haddana murug ayay iigu bilaabatay. Waxaan idhi waan ka xumahay midaas laakiin wax laga murugoodo ima hayaan. Markaas ayuu yidhi sawdigii xalay ku sugnaa xaaladii aan wada ogayn ii sheeg ma cid dheel u oysaa jirta? Waxaan idhi haa anagu haddii aan dumar nahay waxyaabo fudud ayaan ka caroonaa dabadeedna iska oynaa manihin sida ragga. Waxay inoo tahay nafis iyo nashaad waayo waxaan aaminsanahay in culaysku inaga degaayo. Waana sax hadda faxfax baan ahay. Amiir hadalkayga waa uu aamini waayey waxa uuna yidhi waa runtaa Caysha ma tihiin sideena balse ogow bilaash cid u oydaa in aysan jirin oohintiinu sabab ayay leedahay. Waxaa tidhi oohinta waan ku nafisnaa haddana waxaad leedahay bilaa sabab ayaan u oynaa ii sheeg culayska aad iska dejinaysaan xagee buu ka yimid? Waxaan arkay inuu amiir arrintan aaminin markaas ayaan ku idhi iguma kalsoonid oo hadda ayaad i baratay dhibku halkaas ayuu ka jiraa balse waa sax waxyaabo fudud in aan ka oyno. Kadib ayuu yidhi amiir waayahay iga raali noqo haddii aan culays kugu noqday waxaan dareemayaa in aan ciriiri kugu hayo arrimahaagana aad iga qarsanayso. Laakiin haddii aad mar uun jeclaysato in aad arrimahaaga igala hadasho igana dhigato saaxiib kuu dhow ogow diyaar ayaan ku ahay. Waxaana noqon doonaa mid aadan ka shalaayin barashadiisa. Runtii hadalka amiir saamayn ayuu igu yeeshay niyadda ayaana iska idhi allow yaa u sheega in aanu hadalkiisa dhib iyo ciriiri toona igu ahayn ee aan ku dareemayo naxariis iyo in aan wehel haysto. Markaas ayaan ku idhi amiir ha isdihin Caysha culays ayaad ku tahay haddii aad midaas aaminsan tahay waxaan ku leeyahay aniga culays iguma tihid inta aan kaa aqaanana waxaa tahay qof wanaagsan oo miisaan leh. Waxaan kaloo dareemayaa in aad tahay qof naxariis badan fahamkiisuna sarreeyo. Dunidan dadka waa loo dhib sheegtaa oo laga baryaa in ay ku fahmaan laakiin adigu dadkaas kama mid tihid sharaxaadna uma baahnid wax walba wejiga iyo dareenka dadka ayaad ka dheehan kartaa. Ha u malayn in lagu dhibsan karo marnaba. Intaas markii aan ku idhi amiir waa uu isdejiyey kadib ayuu igu yidhi waad ku mahadsan tahay wanaaga aad igu tilmaamtay Caysha. Waxaan rajaynayaa sidaas si ka sii wanaagsan in aan noqon doono igama ahan in aan is ammaanayo balse waa sida aan dareemayo. Sidii ayaanan isku macsalaameynay. Wixii ay sidaas ahaataba amiir xilli galab ah ayuu isoo wacay isagoo ii sheegay in uu iridka guriga joogo waa naxay anigoo ka cabsi qaba in reerku arkaan kadib ayaan ku yidhi amiir maxaa ka qaldan xitaa iima aadan sheegin in aad imaanayso sabab. Wuxuu yidhi ma wax qaldan ayaan sameeyey keliya in aan si kedis ah kuugu imaado ayaan jeclaystay. Galabta waa in aad i raacdaa igamana diidi kartid. Waxaan idhi arrintaas ma fududa iyara sug anaa kuu imaanayee. Maadaama aan casho samaynayay waxaan u tegay gabar kale oo ina adeertay ah gurigana ku noolayd waxaanan ku idhi abaayo arrintan ayaa jirta wiil ayaana iridka ii taagan i dabar maanta cashadana inta hartay adigu iga sameey. Markaas ayay tiri oo wiilku muxuu ahaa sawta gabdhaha guriga loogu soo geli jiray maxaa dariiqyada taagay. Waxaan ku yidhi anigu ma ogayn keliya waan u tegayaa adigu isii dabar oo hooyo iyo reerka kale ka qari arrintan waxay tiri waayahay. Waan soo labistay amiir ayaana iridka ugu tegay waxaanan u sheegay in aanan raaci karin balse wuxuu ii sheegay inuu dhaqso isoo celin doono. Sidii ayaana isaga raacay meel degan oo lagu sheekaysto ayaanu nageeyey. Wax dalbo ayuu igu yidhi balse waxaan u sheegay biyo keliya in aan doonayo intuu igu qoslay ayuu yidhi waan arkaa in aad iga xishoonayso ma aniga ayaa moog in aad wax cunto waan sawiranayaa weliba sida aad u cunto. Anigana sida qof sooman ayaad iila dhaqmaysaa. Markaas ayaan ku idhi waa run in aan wax cuno laakiin hadda uma baahni. Halkii ayaan cabbaar ku sheekaysanay waanan soo baxnay. Markii uu guriga iridka iga keenay ayaan ku idhi hayee waan degayaa macsalaama kadib ayuu yidhi sug inta aadan degin. Hadiyad ayuuna ii soo bixiyey runtii kama filayn horeyna uma arag inuu wax ii sido.
Waxaan ku idhi maxaad isku dhibtay Amiir? Markaas ayuu yidhi aniga dhib iguma ahan in aan qof wax u hadiyeeyo balse waa farxadayda khaasatan adiga. Waxaan ku idhi waayahay. Guriga ayaana soo galay. Sidii caadada ahayd barxadda guriga ayaa la wada fadhiyey. Waxaan isku dayay in aan qariyo waxa aan wado laakiin ma ahayn wax qarsoomaayo. Hadalkooda intaan iska indha tiray ayaan qolkaygii toos u abaaray. Hadiyaddii ayaan horay ka furay. Runtii aad baan ula dhacay. Waxaana iiga soo baxay saacad, fargal, barfuun, ubax iyo shukulaato. Habeenkaas waxaan ogaaday in hadiyaddu kordhiso amaba abuurto farxadda iyo jacaylka. Waxaanba jeclaystay in aan dib Amiir ula kulmo. Isla markii ayaan wacay. Waxaanan ku idhi waan furay hadiyadda, mahadsanid. Kadib ayuu yidhi maya, waa caadi, ka badan ayaad u qalantaa. Waxaan idhi maya Amiir, hadiyad yaraan iyo weyni toona ma leh, tanise waa mid weyn aniga xaggayga. Waxay sidii ahaataba Amiir waxa uu bilaabay in uu lacag ii soo diro anigoo aanan weydiisan. Runtii aniguna midaas warwar ayay igu abuurtay. Waayo xanuunkayga uma sheegin weli, taas ayaana cabsi igu abuurtay. Anigu maadaama aan ahay gabar aan guriga ka bixin, asxaabna lahayn, waxaan bilaabay lacagtii in aan reerka siiyo, waxyarna aan kala haro. Amiir waxa uu ii noqday wehel ilaa heer aan xanuunkaygii ilaaway. Balse anigu waxaan dareemayay xanuun kale, kaas oo ah in aan qof daacad ah helay laakiin aan qiyaamayo una qarinayo xanuun. Fikir ayaa ila soo darsay, waayo runta uma sheegi karo Amiir, kamana qarin karo, oo waa khiyaano. Haddii aan u sheegana waxa dhici doona iyo waxa uu fali doono ayaan ka baqayaa. Midaas ayaana igu keentay fikirka. Markasta uu Amiir lacag isoo diro, hooyaday iyo walalahay ayaan u sii diraa. Galab ayaan Amiir ballanay, waana kulannay. Cabaar markii aan sheekaysanay ayuu igu yidhi Caysha, su'aal ma ku weydiin karaa? Waxaan ku yidhi haa Amiir, taas miyaad iga warsanaysaa aniga? Kadib ayuu yidhi kaama codsanayo, laakiin in aad ka carooto ayaa laga yaabaa. Markaas ayaan ku yidhi haddii aadba ogtahay in ay waxyaabo xun yihiin lagana caroon karo, iska daa ha i weydiin. Wuxuu yidhi waxyaabo xunxun anigu cidna ma weydiiyo, damiirkayguna isiin maayo. Waxaan idhi haddaba i weydii waxa ay yihiin, in aan ogaado ayaan rabaa. Markaas buu yidhi Caysha, lacag waan kuu soo diraa sax? Waxaan ku yidhi haa, waad ii soo dirtaa, maxaa jira? Wuxuu yidhi laakiin ma isticmaashid sabab? Waa naxay, waxaana mooday in uu ka warhayo loona sheegay in aan reerka siiyo. Waxaan ku idhi yaa kuu sheegay midaas? Wuxuu yidhi maya, cidna iima sheegin, laakiin sidii aan kugu bartay, dharkii aan kugu bartay waxba iskama beddelin. Waxaan dareemayaa in aadan waxba soo iibsan. Aad baan uga naxay midaas. Markaas ayaan idhi oo kaalay arag, dhar la'aan miyaa iga muuqata? lacagtuse ma shardi ayay wadataa, kaasoo ah in aan dhar iyo labis ku soo iibsado? Haddii ay sidaas tahay, lacagtaada gooso, mar kale waxba ha ii soo dirin, waxba ha igumana sheegan.